ninkan iyo gabadhan gaarigan ayay ku imaaneen gabadha ayaa ku dhisay nakeen waan dahna maanta gudaha aan galnay waxay arkeen waardiyahan oo ku hadlaya taleefanka gabadha ayaa dhihayso maxaa halkan ka dhacayo ninkan waardiyahan wuxuu la hadlayaa qoyskiisa wuxuu u sheegayaa maanta in la sii doono lacagta mushaarka wuxuuna leeyahay waan inii soo diri doonaa lacagta ayaan inii soo diri doonaa gabadha waxay ku leedahay albaabkan iska furin ayay ku leedahay ninkan wuu ka diiday wuxuu leeyahay albaabka iskama furino ilaa taleefanka oo ninkan ka baga ayaan sugaynaa mar walbana aan arko taleefon ayuu ku hadlaa lacagta kuma qaato inuu taleefon ku hadlayo waa inuu albaabka oo furaa waardiyaha ayaa dareemaya inuu imaado mudanihiisa wuxuu u sheegaya familkiisa inuu imaado mudanihiisa wuxuuna ku leeyahay waxaad kadib ayaan inugu soo celinayaa waardiyihii ayaa mudanaha xaggiisa imaanaya wuxuu ku leeyahay mudan igaraal noqo wuxuu ku leeyahay asigana mar walba adigaan ku arka taleefon ayaad ku hadlaysa ma taleefonka ayaad lacag ku qaadataa albaabka ayuu ka furaya gudaha ayuu galayaa fadlan hilmaama in aad furato calaamada gambaleelkaas si aad ula socoto muuqaal walba aan soo gelino fadlan muuqaalkan sheergalay oo la galay oo la wadaag asxaabtaada intaas waxay inoo tahay dhiirigelin gudaha markuu soo galo ninkan wuxuu bilaabay cunto cunis gabadhan waxay ku mashquulsanta taleefon siga ayaa dhahay maad cuntadan soo cunti gabadha waxay ku leedahay waan mashquulay cuntadan way dhamaatay ee adiga cun ayay ku leedahay midaan cunto kale ayaan dalbanaya gabadha ayaa dhiyay cuntada waa in aan doontaa asigana wuxuu leeyahay maxaad u doonaysaa cuntada waardiyaha ayaa joogo asiga ayaana ku keenayo waardiyahan halkan ayuu cunto ku cunaya wuxuu u yeerayaa waardiyi wuxuu ku leeyahay waa inaad imaadaa waardiyaha wuxuu ogaanayaa inuu gudaha laaga wacayo waardiyaha wuxuu sameeyaa ayuu garawaanaya ugu dambeyn raashinkii ayuu iska dhigayaa meesha ayuuna kasoo istaagayaa wuxuuna soo aadayaa dhanka iyo mudanihiisa gudaha ayuu soo wuxuu ku leeyahay qaaxida banaanka ku taalo waa inaad kasoo qaadaa cunto waardiyahan wuxuu ku leeyahay waayahay meesha ayuu kasoo tegayaa waardiyaha wuxuu keenaya cuntadii wuxuuna saarayaa miiska ninkan waardiyaha cuntadii ayuu ka qaaday gabadha xaggeeda ayuu bixinaya wuxuu leeyahay ka waran haddii aad shaah cabto sidee dareemaysaa ayadna waxay ku leeyahay shaah waan iskala waayo sababta qabow ayaan dareemayaa ninkan waardiyihi ayuu ku diisanaya wuxuu ku leeyahay waa in aad soo qaadaa 2 koob oo shaah waardiyahan wuxuu ku leeyahay cunto ayaa banaanka ii taalo ee waa in aad qof kale u dirtaa wuxuu leeyahay adiga ayaan kuu diri hadalkayga waa inaad maqashaa 2 koob shaah degdeg waa inaad ku keentaa waardiyaha asigoo kuxun wuxuu leeyahay waayahay meesha ayuu kasoo tagay wuxuuna u keenaya 2 koob shaah gabadha ayuu koobka shaah siinaya wuxuu damcaya koobka kalena asiga siiyo si lama filaan ah ayaa shaahi korkiisa ugu daadanaya ninkan uu xanaaqay intuu soo istaago ayuu waardiyihii darbaaxaya wuxuuna ku leeyahay waa maxay waxa qaldan aad sameynayso wariyaa waxaad iiga dheeshay ayuu ku leeyahay hadiyadeeda qaaliga ee aniga leesiiyay waa maxay sababtaad u samaysay midaasi ninkan waardiyaha wuxuu ku leeyahay hadda waa inaad horteeda ka tagtaa waardiyaha asigoo ka calool xumaanaya ayuu meesha kasoo tagay gabadhana waxay ku xumaanaysaa waardiyaha sida foosh xun oo kula dhaqmay ninkan wuxuu imaanaya marwada xafiiska wuxuuna u sheegay in asiga ay tahay shaqadiisa inuu ilaaliyo banaanka oo albaabkan dadka ka furo wuxuu leeyahay aniga ma ihin in shaah iyo waxyaalahaas aniga leediro shaqadiina ma marwada waxay u sheegaysaa in ay ka xun tahay midda maanta ku dhacay asiga marwadan waxay ku leedahay midaas akalool xumaan iska dhaaf ayay ku leedahay